بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم dhegeystayaasha qiimaha badan oo meel kasta naga dhegeysaneysaan waxaa farxad noo ah inaan la kulmo oo aan weliba ka qabto barnaamij xiiso badan Ibraahim Cabdi Xamari oo loo yaqaano Ibraahim Xamari oo nin dhalinyaro ah ku nool magaalada Burco isaga kula kulmay magaalada Hargeysa waa nin dhalinyaro oo qoraaya dabcan wuxuu qoray buug ku saabsan mucjisooyinka quraanka isagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday lambarka loo yaqaano 19 marka kulli waxa ku jira iyo bal lambarkaas mucjisooyinku xambaarsan yahay baynu jecelnayno dhexgalno ka horse waxaan jecelahay Ibraahim inaan weydiiyo bal hordhac yar oo ku saabsan isaga wixii ku dhaliyay inuu buugan qorayo sida ugu dhalatay iyo bal maraaxil ku la maray fikirkaas sida ugu yimid wad mahadsantahay Cabshukuur buugan inaan qoro waxay ku dhaliyay 3 sano muddo 3 sano ku dhawaada waxaan ahaa macallin quraan inta wixii ka dambeysay waxaan noqday macallin saynis baan noqday sayniska iyo xisaabaadka iyo ayaan u beeray sanadii u dambeeyayna physics-ka iyo xisaabta ayaan xoog saaray markaa waxay igu dhalatay maadaama labadii fiil baan wax ka dhigtay balanaan raadiyo relationship ka dhaxeeya xiriir ka dhaxeeya iyo bal inaan raadiyo qaab aan ugu qancin karo dadka nan muslimiska aan islaamka ahayn xujo cad oo sheegaysa quraanku inuu ijaas yahay oo xaqiiqa taas ay ugu dhalisay mucjiso yahay markii aan raadiyayna waxa iga soo baxay buuggan iminka anaga halkan ku hayno iyo buug kale oo gacanta ku hayo oo aan soo wadaysna ayaa iga soo baxay research-kayga ka waran qoraalkiisa intuu kugu qaatay markaa buug kan iminka aynu gacanta ku hayno wuxuu igu qaatay 2 sanadood ay ku qaatay oo de aan habeen iyo maalinba aan garanay habeenada qaar waxay wali eedaami jiray salaad subax saan u wado qoraalkiisa kan kale iminka aan wadana sanad iyo xoogaa waan waday walina ma soo saarin wali waa ku jira ku guda jira marka adigu 2 sano aan ku qiyaasay buugi way lambar 19 yani qofku markuu mucjisooyinka quraanka qorayo taxadir badan buu baahan yahay waxyaabaha aad iska ilaalinaysa maxaa kamid ah horta walaalow wax ka qoraysa waa quraankuna de wuxuu leeyahay culimo loo daba fadhiisto oo cid baa jirta oo daba hadii aad in yar khalado wuxuu noqonayaa khalad kugu soo noqonaya saastaradeed waxaad aad isaga ilaalinaysaa mar walba inaad khalad gasho khaladkaas hadii kale wuxuu noqonayaa mid ummadana hadhow aad u gudbinayso adigu oo de aad noqonayso mid supplier wixii si faafiya khaladka faafiya markaas aanay taas u dhicin waxaad ku dadaalaysaa inaad khalad kasta oo hayaraado ama haweenaade ka ilaaliso buugaaga inuu ku dhaco marka culimadu waa isla aragteen way kula arkeen buugga waan isla aragnay waan u geeyay in kastoo uu yahay fiilkan aan wax ka qoray mid ku cusub ummadda Soomaalida culimadu hadiye jeer wax yaqaanaan faniyo badan baa jiro quraanka faniga naxwaha oo quraanka loo barto sidee loogu fahmo faniga fiqiga faniga tafsiirka faniga waxa soo dhan wax weeyaan faniyo quraanka kamid ah oo lagu barto macnihiisa iyo hawshiisa fanigana waa fan xisaab ah oo lagu baranay quraankii awoodiisa inuu mucjiso yahay marka runtii waa culimada aad ban isugu xisaabtaas oo ay aad u yar adag tahay oo culimada aad moodo badankooda inaanay faraaba la gelin bay sayniska laakiin waan u geeyay culimo badan oo way soo eegeen oo way soo akhriyeen waan ka soo qaaday intii aan daabicin karo way imika wax la geli doonaa dadka xaadiro kuma laga siiso 19 quraanka bal siday isu waafaqayaan horta walaal kitaabka quraanka waxa weeyaan kitaabka kaliya ee adduunka guudkiisa yaala ee xisaab ku dhisan base of calculation oo kelmadihiisa iyo xuruftiisa iyo aayadihiisa iyo suuradihiisa mid waliba uu xisaabsan yahay xisaab ku dhisan buuggan iminka anigu aan qoray ama nin kastoo qoraayo oo adduunka guudkiisa jooga uu buugga uu qoray suuragal maaha inuu xisaabiyo wordska ugu jira buugiisa oo deetana uu intuu base u sameeyo calculation yiraahdo basekaas ha ku dhisnaado pageskeeda iyo chapteradeeda iyo sentencekeyga iyo wordskeyga iyo wax waliba ha u qaybsamaan basekaas suuragal maaha waxa la sameyn karin waa wax sababta aan u leeyahay buuggan waa kitaabku waa mucjiso maadaama qoraayadii adduunka oo dhani ama professor ha ahaado ama philosopher ha ahaado ama wuxuu doonaha ahaado aanu sameyn karin buug isagoo kala waa mucjiso buuggu kitaabku wuxuu ku dhisan yahay xisaab waliba number badan xisaab badan
markii aan kitaab buuggan qorayay ama aan fiilkan gelayay waxaan islahaa xisaabta qur-aanka oo dhan aad wax ka qorta, laakiin waxaan ogaaday xisaabta qur-aanka ku jirtaa inay ka ballaaran tahay wax buug lagu qoro. saas daraaddeed waxaan taarget ka dhigtay oo aan gaar u socday hal nambar keliya inaan buug ka qoro, iyo xisaabtaas uu la leeyahay xiriirka uu la leeyahay qur-aanka. halkii nambar baa ahaa noqday nambar 19. nambarkiibaa buug dhan oo dhammaystiran muddo 2 sannadooda aan ku dabaqsanaa oo waday. maxaad heshay haddaba? waxa iiga soo baxday oo aan helay kitaabku inuu ku dhisan yahay xisaab ahaan nambarka 19 la yidhaaho, nambarka 19ka. aayad qur-aan baa jirta kitaabka qur-aanka ah, aayaddaasoo tiraahda فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 كلمة آياداس waxay sheegaysaa calayha 19 naarta inay joogaan dusheeda 19 malag sida culimadeena inoogu macneeyeen. 19 ka malag aayadda ka dambaysa waxay leedahay wamaa jacalnaa asxaaban naari ilaa malaa'ikatan wamaa jacalnaa ciddatahum asxaabta naarta kamaanaan dhigin buu leeyahay ilaahay malaa'ig mooyaane wax kale. tiradooda iyaga ma hadda malaa'igta maaha, tiradooda ayaa waxaanu ka yeelnay fitnatan liladiina kafaruu, dadka gaalada ah ee aan diintan aaminsanayn inay fitno ku noqoto iyo xujo cad oo hor taalla. waa tiradooda, haddana maaha malaa'igta ma ciddatahum wey. marka culummadu adduunka waxay sameeyeen, culummo waaweyn oo PhD iyo qur-aanka daraasiisa nambarkaasay daraaseeyeen, waxayna ogaadeen aduu sanadii 1968 bay ahayd markii ugu horreysay ee luqadda carabiga la geliyey ama kitaabka qur-aanka la geliyey computerka. markaasaana la helay calculationka. kitaabkuna wuxuu ku dhisan yahay waa ku bayskaraysan yahay xisaab. nambarka 19 la yidhaahdaana waa nambar yaro adag, xisaab ahaan prime numberska la yidhahdaa oo nambarada aadka u adag, uma qaybsamo nambarada caadiga. dad 105 istiraha 19 u qaybi uma qaybsamayo, pointi baa gelaya mar walba uma qaybsamayo. laakiin se nambarada qur-aanka ku jira had iyo jeer uu qaybsamaya. taasaa cajiiba in marka loo socdo pointiga loo socdaa waa kaas. adigu haddaan buugaygan iminka nambarra ka soo qabtaan istiraha u qaybi uma qaybsamayo, laakiin kitaabka nambaradiisii waa u qaybsamaya. tusaale cad dadka markaas waaye kolley kitaabku waa weyn yahayo ka goyoon mayno, laakiin waxaan soo qaadanaynaa aayadda u horreysa. kitaabka qur-aanka aayadda u horreysa soo qaadanayna. aayadda u horreysa waxa weeyaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waa bisinkaa ku bilowmadaa kitaabka. bisinku wuxuu ka kooban yahay markii la tiriyo xuruuftiisa 19 xaraf. 19 waa u qaybsantaa. hadduu 18 xaraf noqon lahaa uma qaybsameen ama uu 20 noqon lahaa. waxaa kaloo cajiiba suuradaha qur-aanku waxa weeyaan 114 suuradood. 114 suuradood way u qaybsamaan nambarka la yidhaha 19. dee 113 noqon lahayn ama 115 uma qaybsameen. isla bisinkaynu kusoo noqonnaa. bisinku kitaabka qur-aanka wuxuu ku jiraa 114 kaas suuradood 113 buu dusha ka saaran yahay. suuratu baraa ayaa ah bilaa bisin. suuratu tawba 113 uma qaybsanto waxa loo yaqaano 19. saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay bisin dheeraada oo 114 inooga dhiga si uu ugu qaybsamo 19. waxaaba cajiibka weeyaan qur-aanka ku jira. bisinkii wuxuu ku jiraa suuratu namal. xisaabta waa isku fadhiisato waa u qaybsamay. haddana waxaa la isweydiiyey bisinkani suuratu namal muxuu ugu jiraa ee suuratu baqara uu geli waayey ama suuratu qisas ama suuratu naba. suuradaha qur-aanka oo dhan maxaa loo doortay suuratu namal? suuratu namal iyo suuratu tawba markii la tiriyey waxay noqdeen 19 god. suuradda 19aad yacni suuratu tawbayna joognaa. hoos soo soco yunis yuusuf xijri hoos soco saad u soconayso suuradda 19aad markaa taagan tahay waa suuratu namal. markaa 19 way u qaybsantaa. hadday suuradda 18aad noqon lahayd uma qaybsanteen. waxa cajiiba oo la siyaab leh suuradaha nambarkooda. suuradu waxay leeyihiin nambar bay leeyihiin. tusaale ahaan suuratu tawba waxa weeyaan suuradda 9aad. suuratu namalna waa suuradda 27aad. haddii aynu soo qaadno suuradda 9aad nambarkeeda 9 qorno, suuradda 10aad 10kii ku dhinac qorno in u geyno 12 u sii geyno
12 usii geyno tusaale ahaan 9 oo loo geeyo 10 marka hore wax isku noqonaya 20 tirooyinkooda haddii laysu geeyo tirada inoo soo baxda haddaynu 9 iyo 10 u qaybino waaba u qaybsantaaba hadda ogow oo maanta oo dhan haddaynu tiro kasta soo qaadano 9 iyo 10 u qaybino u qaybsami mayso waxyaaba cajiibka weeyaan waxaa ka sii cajiib badan hadda waa aayaddii koowaad baynu ku jirnaa ee qur-aanka waxyaabaha ka sii cajiibka badan waxaa ka mid ah bisankan aynu ka sheekeynayna dheeraadka juska uu ku jiraa waa kuma baa leeyi ma juska 6aad ba ma ka 5aad ba waa juska 19aad waa cajiib wey intaa waxaa sii dheer waa imsi jeer baynu kusoo noqonay waa badan tahay sooma waxaa intaa dheer aayadan bismillaahi araxmaan araxiim ah waxay ka kooban tahay 4 kelmadood oo ah allaahi iyo arraxmaani iyo arraxiimi iyo ismigii bis markaynu ka socno inta ay bisanka ku jiraan maaha daya inta kitaabka qur-aanka gudihiisa ku jiraan haddaynu soo ururino kelmadda ism waxay qur-aanka kusoo arortay 19 jeer gebigeedu hadda 18 maaha 20 maaha 17 maaha marka 19 waa u qaybsantaa maxay 19 kelmadda arraxmaani waxay kusoo arortay kitaabka 57 jeer 57 jeer waa number u qaybsama numberkii la oran jiray 19 ma hada haddii 56 noqon lahaa way isdhaafi lahayd xisaabta kelmadda la yiraahdo allah iyadu kaligeed baa lecture u baahan oo waa kelmad waana kelmadda u badan kitaabka qur-aanka waa kelmad gaarkeeda u ijaasayay halkan noo yar dhig waana u qaybsantaa 19 maxaa haray kelmaddii u dambeysay ar-raxiimi sida culimada xisaabtu sheegaan kitaabka baara ar-raxiimi waxay ku soo aroortay kitaabka 115 jeer 115 jeer uma qaybsanto lambarka la yiraahdo 19 laakiin waxa cajiiba oo la yaab mudan hal aayad oo kamid ah kitaabka qur-aanka oo ay ku jirto ar-raxiim waxay tilmaamaysaa nabi maxamed لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم آيات سوك الشيكين النبي محمد حريص عليكم ما عنتم أذو الرؤوف الرحيم نبي قاسو أرى حريص بدن أمتيس حبض أسمرك واحد كشيكين النبي محمد هل كان نوردي بقول إيش نيتوكي محاسو هذا بقول يا فريتوك الله كهالله بقول يا فريتوك ونبر قيب سما أمر سجالته وعيدي كوات هذا وحين ما تودن كشرنا ayadaas intaasay ku eg tahay laba tusaale kaloo aynu soo qaadan karnaa haddaynu baahan waa si fiican dee qofku hadduu magaranaysaa dadka markaasaa loogu sharxo waxaa laga yaabaa inay soo dhawaato oo 19 meesha ku qornaa uun inaan la dul taagnayn jecel laba sax tusaale kale dadka la wadaaga walaalow horta dee wuu badan yahay oo maanta oo dhan haddaynu wadno maanta oo dhan ka gayoonmayno laakiin maadaama da markii hore aayaddii u horreysay aan soo qaatay iminkana waxaan soo qaadan doonaa dee suuraddii u horreysay ee qur-aanka soo degta ee nabi maxamed lagu soo dejiyay calayhi salaatu wasalaam suuraddii u horreysay waxay ahayd suuratu alcalaq suuradda la yidhaha iqra sida nayloo soo wariyey ama inagu soo gaadhay dee xaadiista iyo diinta inagu soo gaadhay mutawaatirka nabi maxamed waxaa kusoo degay 5 aayadood oo ka mid ah suuratu iqra 5 aayadood waxay ahayd maalintii u horreysay markii malagu yimi uu ku lahaa iqra uu lahaa ma ana biqaari 5 aayadood waxay ahaayeen iqra bismi rabbika alladii khalaqa al-insaana min calaq iqra warabbuka al-akram alladii callama bilqalam callama al-insaana maa lam yaclam 5 aayadood oo keliya ayay ahaayeen 5 aayadood markii la tiriyey waxay noqdeen 19 kelmadood هذا 18 ما هي 19 كلمات بين نقطين 19 waa u qaybsamaa numberka la yiraahdo maxay 19 inta soo kaliya kuma ekaanin suuradii kuma ekaanin mar labaadkii waxaygu waa soconay suuratu iqra waxa soo degtay suuratul qalam baa soo degtay mudaththir baa soo degtay muzammil baa soo degtay suuratul calaq ama suuradii iqra la oran jiray mar labaad baa la dhameystiray 5 aayadood lagu madeynin waa la dhameystiray suuradda imsa lagu soo daray bay kula tahay aayado bal qofku markuu maskaxdiisa ka shaqeeyo wuxuu soo socdaa talo muuji 14 baa lagu daray markii horena waxay ahayd
shan loo geeyay 14 waa imisa 19 19 waa u qaybsamaa intaasoo keliya maaha suuradda oo dhan horta haddii aynu intii hore waan kusoo sheeka dhaafee shantii aayadooda keliya kelmadahoodaynu tirino waxay noqdeen 19 waa la soo qaaday xuruuftooda la tiriyey xuruuftooda markaan ka hadlay waxa weyaan iqra alif qaaf ra alif kale bismi ba siin miim xuruuftii baa la tiriyey waxay noqdeen 76 xaraf 76 xaraf haddii loo qaybiyo 19 waa u qaybsamaya haddama haddii 75 noqon lahaayeen uma qaybsameen suuraddii marka 19 aayadood ay noqotay kelimaadkeedii suuradda kelimaadkeedii markii hore 5 aayadood keliya kelimaadkooda tirinay mar labaad baa la soo qaaday suuradda oo dhan baa kelimaadkeedii la tiriyey waxay noqdeen 76 bayana noqdeen 77 hadday noqon lahaayeen xataa uma qaybsanteen 19 mar shanaadkii baan u maranaya haddana suuradda oo dhammaystiran haddaynu soo qaadno oo aynu tirinno xuruufta sidaan markii horeba xuruufta u tirinay waxay noqdeen 285 xaraf oon midna dheerayn midna ka dhinnayn lambarkaasina waa lambar u qaybsama 19 haddii bisanka suuradda lagu daro oo dee la raaciyaba iyana waxay noqonaysaa 304 xaraf markaana waa lambar u qaybsama 19 waxyaaba cajiibka waxaa ka mid a kasii la yaabka badan intaas oo jeer ee ay number 19 u qaybsato suuraddaas suuraddana waxay ahayd suuraddii ugu soo hordegtay qur-aanka maadaama ay ugu soo hordegtay qur-aanka ama sidaynu dee mantiqa caaliga ku naqaano dee nolosha bini aadanka dee chapterkii ugu horreeyay buugga la qoray wuxuu noqdaa chapterka koowaad ee buugga xagga ugu horreysa lagaga qoro maadaama ay suuraddan ahayd suuraddii ugu soo hordegtay dadka qaar baa soonay miyaanay mudnayn in dee barta faatixa taalla la dhigo oo ay iyadu ugu horreyso haddana booska ay taallaa waa boos 19 ku fadhiya oo u qaybsan nambarkii xisaabta ah ku fadhiya markaynu ka soo bilowno xagga hoose soo bilowno suuratu naas qul a'uudu birabbil naas qul a'uudu birabbil falaq aynu kor u tirino suuradda 19aad waxay noqonaysaa suuratul alaq suuraddani juska ay ku jirtay jus cama la yidhaha hadda soomaalida u taqaano jus cama ee soddonaad kule inagu malaaka koowaad baynu naqaanaa qur-aanka xagga hoosena ka bilownaay haddii aynu xagga sare ka soo istaagno markii hore xagga hoosena ka istaagnin sooma qul a'uudu birabbil naas baynu ka soo tirin iyo qul a'uudu birabbil falaq iyo qul huwallah iyo kor baynu soo kacnay haddaynu kor ka soo bilowno oo cama soo istaagno oo naasicaad hoos u tirino oo cabasa soo gaadhno hoos u soo raacno isla suuraddii suuratul alaq waxay noqonaysaa suuradda 19 marka imse jeer probability-ga 10 times markay 10 jeer aad tiriso 10kiiba waa u qaybsamaya qur-aanka nambarkii 19 adiguna haddaad real life-ka noloshaada caadiga haddaad ku base garaysanta soo qaado nambaro iska ku nasiibsan huno aad soo qabatay oo aanad ka fikirin oo 10 soo dhigta halkan oo probability-ga aad eegto 0 baa kugu soo baxaya wax u qaybsamaya ma jiraan kaasina wuxuu noqonayaa tusaalihii labaad waxaan malaya dadku inay si fiican u fahmeen ibraahimow waa arrin aad iyo aad u cajiiba horta oo qofku marka lagu sii wado su'aalo badan baa ku dhalanaya dad qaar waxay isweydiin karayaan warniyo tole 19 xikmad rabbaaniya ku jirtay tole xikmaddaas waa maxay ma badho weli xikmadda wax ma ka ogaatay wallaahi walaalow horta qur-aanku horta wax 19 kaliya kuma jiro nambaro badan oo cajiiba ayaa ku jira oo witri inna allaha witrun yuhibbu al-witr bun-nabi nambarada witriga oo dhan baa cajiiba ma 19 oo kaliya xisaabaad badan oo aan kuwan ahayn oo kaliya way ku jiraan oo dee hadda cilmiga iktishaaf lagu sameeyay hadda welina uu socdaa baadhistiisii wixiisi oo oran karno nambarka 19 la yiraahdo waa nambar khaas oo gaar ah oo laga saacideysto oo wax gaar ah sida waa cadeyn inuu u yahay in kitaabkan uu yahay min indillah waanu min indi maxamed ahayn waxa jira dad gaalaha ku dooda kitaabkan maxamed baa qoray nabi maxamed baa qoray maanta anigoo ah nin engineer oo ah macallin xisaabeed iyo macallin physics ma awoodo iska daa kitaabka dhan quraanka ah ma awoodo hal aayad oo kamid ah siday u dhisan tahay kitaabku u dhisan yahay xisaab ahaan ma sameyn karo
anigoo engineer iska daaye haddaynu isugu yeedhno engineerada adduunka jooga o dhan iyo dadka xisaabta ku takhasusay oo aynu idhaahno soo qaata kombiyuutaradiina iyo qalabka casrigaa haysataan iyo kalkuleetarada caalamiga ah ee ugu dambeeyay ugu casrisan soo qaato halkan soo fadhiista, xaqiiqdu waxay tahay inaanay samayn karin hal suurad qul in kuntum fii raybin mima nasalna calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min mislihi ayuu ilaahay suurad keliya balla kaalaya, waana xaqiiqi weeyaan lama samayn karo. markii hore dee dadku waxay odhan jireen ama kuwa galada ah ama kuwa mutashakikiinta ah yara shakisan ama kuwa mulxidiinta aan ilaahba aaminsanaynba waxay odhan jireen dee siaan suurad keliya loo keeni karin. waa tii la lahaa dee ninkii la odhan jiray nin carab ahaayoo nebinimo sheegtay oo musaylamat alkadaab la odhan jiray ayaa wuxuu idhi waxaan samaynayaa badee suurad baan samaynaya alfiilu walfiilu wamalfiilu buu idhi wamaa adraaka malfiilu wax noocaasuu sameeyey mogti, laakiinse muu ogeyn waxyaabaha kale ee xisaabaadka iyo waxyaabaha ku dhisan. maanta xaqiiqiyan xisaabta waa wax aan la iska endhatiri karin, laba ugeeda adduunka o dhan waa isku qirsan yahay inay tahay 4 tahay. xisaabta halkan taallaa waa wax la isla qirsan yahay inaan bila'aadanku samayn karin, ma samayn karo. marka waxay xaqiiqadu tahay haddii bila'aadankii samayn kari waaye maanta qoladii ugu dee casrisanayd ee brofesoradii iyo nimankii cajiibka ahaa ee xisaabta adduunka u hayay hadday samayn kari waayeen siday suuragal uga ahayd qof bani aadama oo 14 qarni ka hor noolaa oo meel saxaraa ku noolaa oo aan haysan walaa calculator walaa computer oo aan ahayn qof wax bartayba alif walaa ba loo dhigay oo iska reer baadiye ah siduu u samayn karaa xisaabta intan laga in hortaala midkaasaa noqonaysa mid dee wax la isweydiiyo cajiiba. haddii aynu inagii samayn kari weyne maanta halkan soo fadhinaa sidee u samayn karaa qof sidaas? marka waxa xaqiiqi inaanu kitaabkan dee nebi maxamed qorin ee min cindi illaahi. marka xikmaddaas yani waxa weyn waa marka waa xujada ayaa adkeynta qur-aanku u xambaarsan yahay. xujadaas u xambaarsan yahay. waxaa jirta aayad waxyaaba aan aadka ula yaabay waxaa ka mid intii aan waxaan baadhayay aayado badan oo qur-aanka sidii tiimkan akhriya ahayd suurad keliya keena. marka hore waxaa la yidhi faatuu b10 suura 10 suuradood la kaalaya. markii dambe waa laga khafiifay bal suurad keliya keena 10 kaba iska daayo. aayadaha qur-aanku uu taxadiga ku sheegayay waxaa ka mid ah aayad yaroo qul la in ijtamaca al-insu wal-jinnu calaa an ya'tuu bimithli hada al-qur'aani laa ya'tuuna bimithli. insigii way dhaaftay. markii hore insi baa lala hadlaya waxa la insigu bal waa kana suurad keena. waxaa la yidhi haddii insi iyo jinba isu tagaan walow kaana oo ay urursadaan oo ay bahaystaan walow kaana bacduhum libacdin dahiiran oo weliba ay soo hor fadhiistaan oo is arkaan ma la iman karaan kitaabkan oo kale. aayadda laftirkeeda waxay ku dhisan tahay lambar 19. waa aayad yaroo intan leeg waa sentence yaroo kooban waxay ka kooban tahay 19 kelmadood waxayna ka kooban tahay 19 xaraf ay ka samaysan tahay. markaan leeyahay 19 kelmadood waxay ka samaysan tahay way 19 xaraf. tusaale ahaan ba ta ja xa kha da xarufta caadiga ah ee 28 weeyaan carabi 9 baan kuba jirinba 19 xaraf keliya ay ka samaysan tahay. iyadana aayadiina marka la tiriyo 76 xaraf haddii loo qaybiyo 19 oo soo baxaysa. maalmaha kamid ah waxaan u tagay macallin Ugandisa oo English ka dhiga. waxaan ku dhigeen hadii jeer English waxa la sameeyaa composition baa la sameeyaa ardayda loo diraa wordska laga tiriyaa intaas oo weero soo qor composition. waxaan ku dhigi ma samayn kartaa sentence yar oo ka kooban 19 words 19 kelmadood oo letterskiisa ama xuruftiisuna ay yihiin number u qaybsami kara 19 inta doonta ka dhigaad guyo kana samaysan alphabetic Englishka marka aynu eegno ABCD da just 19 words 19 ka samaysan kaliya oo aan wax kale lagu dari karin. waxaan ku no impossible buu aniga iska daayacad kale samayn kartaa xataa ma jirto. marka kuma si oranin aayad quraana weeyaan iyo laakiin anigu dantay aan lahayn waa ka gaaro ma iska gati. marka aayadaas oo kaliya iska daa suurad in la sameeyo ayaa cajiibaba say u dhisan tahay. waa hagaag Ibrahim oo iyagana de xisaabta quraanka ku jirta tabcan waa sheegtay kitaabku inuu xisaab ku fadhiyaba 7 iyo 13 baan ku arkaya ka farka buugo oo iyagana marka ayaga qorshe ku jiraan. qorshe ay ku jiraan number 7 ka hadda gacanta ku haya abadi lahayd hadda gacanta ku haya isagana insha Allah sanadkan soo socda ama kan aynu ku jirno gudihiisa waan soo saari doonaa buugan insha Allah taala. maxaa saameyn kugu soo noqotay markii uu buugan soo baxay?
wallaahi niyow wax saameynoo weyn dadkii horta waxay u arkeen dee cilmi cusub oo iktishaaf lagu sameeyey oo dee waan arkay dad badan oo iisoo mahadnaqay, waan arkay dad badan oo wax ka faa'iiday, waan arkay oo dee buuggii akhristay oo cilmigii ku jiray qaatay dad badan. laakiin weli maan arkin wax igu soo celiyo oo yidhaahda hebelow halkaas way khaldan tahay, halkaa inaga hagaaji. alla ilaa waxaan arkay inaan baa maalin igala soo hadlay facebookga, waxaan ku qoray contactigay aan buugga ku qoray wixii khaladaad ku aragtaan igu soo celiya si aynu u bedelno dee daawacadaha dambe. marka inan baa ii soo diray meel khalad daabici ku dhacay oo lambar 19 ahayd ee 2 jeer lagu dhuftay 19 waxay noqotay marka 1919 ay noqotay. marka dee lambarka laftirkiisu 19 waa qaybsan, laakiin waxa lumay meeshii tiradii waxay meeshii 19 lambar laga eegay baa 1000 iyo dheeraad tagtay. marka khaladka waan arkay, welina dee waan ku guda jiraayo, waan aniga dib u baaraya insha Allah daabacada dambe oo laga saari doonaa wixii khalada. aad iyo aad baad mahadsan. waa aad mudan sax.